ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعد وسعادة محمد عبد الرحمن. waxaan ku hadlayaa magaca ururka hablaha Taf Balayn Girls. maanta waxaan ku sugannahay halkan waxaan soo booqanay maama Leyla oo haysata wiil aragga naafaka isla markaasna aad u daayar booqashadaas balaaran oo maaragtay aanu aad u soo booqanay isla markaasna aanu deeq yar oo maaragtay raashin yar aanu soo gaarsiinay ayaanu wadnaa maamo magacaaga Leyla Jibril Cabdullaahi Leyla wiilka yar waan aragnaa inuu arag leeyahay waana wiil aad u daayar goorma iyad ogaatay inuu arag beelay wiilkeen waxaan ogaday 5 bilood meelaha markuu jiray ayaan dareemay inaan wax arkahayn markaa inuu horta ku dhashay dee baan u malaynayaa waayo inaan ka yar markuu caloosha ku jiray dhiigka oo kale iyo waxyaabo noocaas ah igu dhacay fara badan صح isagoo xanuunsanay inuu dhashay صح markaa ma garan kartid markaa goor beelay ma garan karayo inuu ku dhashay caloosha dee inay inta dibadda joogay dee si dee waxba inta hore kama fahmaysan wax dhakhtar ah ma la xiriir wax dhakhtar waan la dhakhtarkii ugu horeeyay ugu geeyay wuxuu ugu yiri dawo male صح inaan wax dawo male maxay hayday markaa aniga ku eriyo ku macadalka dibadiisa ma waxba looga qaban karin waxba loogama qaban karin buu yiri iska dhaaftay waxa weeyaan neerfahan dambe iyo wax ka qaba waliba koodinta muu ku eegin wax qalaba muu saarin indhihiisu muu saaway maxaad ku garanaysaa waan ku waxba ku leeyahay wixii uu yiri halkaasaan ka fahmayaa inaan ka hadlo malahay iska daa dalka dibadiisa hadda jeceshahay waad geen kartaa iskuul iyo waxa inuu helo mooyaane iyo waxbarasho mooyaane kala ma garanayo markaan wiil hayba haddana dhakhtar kale geeyay dhakhtarkii kalena wuxuu waan suuxi doonaa baari doonaa wuu suuxiyey wuu leeyahay buu yiri ku kalo haddana ay diraykiina wuu suuxiyey 3 jeer bayna ka suuxiyo kooma la gelin markii dambe qalliin baan u gelinaynaa bay yiraahdeen labada indhood maalin wada qalin markay labada indhood maalin wada qalin maxay yahay inankii waxba kama dareemin 10 bilood markuu meelaha jiray yarkii markii hore 10 bilood markuu 10 gaw markuu jiray ma qala man hal baa lagu qala marka intii hore waxba kama dareemin laakiin in mudayara waxaan islaamada marka aad tiro la qabsaday soo waxaad moodaa inuu yar arkayo oo fahmi waayo marka labada indhood ma yaqaan labadaba maalin wada qalay صح دواء كاس مركز دمان وشيء يقول أختار في إيران في أرق ماله قليل فيه واحد يقول هين تلك تبي تسمع يا مرة إيه دونا صح مركز هو ده قصة شلون ده في واحدة طبعا مركز بدأ اللود بيقول هو اللي بقى متبع في عننا كان بدناوي أدري لي ده مركز تلك تبي تسمع حوالي وطن تيا ويله هنا marka dibadda lagu yeeli doona marka aan ku meelinayno qalliin iyo waxa waa hagaag marka ma ku cilmiga kana 2 sano iyo 2 bilood buu jiraa 2 bilood markuu jirana waa la qabtaa صح إن شاء الله waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ilmaha yareedada yar la aragiisa u soo celiyo ilaahay baa maaragtay dhakhtar oo ilaahay baa maaragtay aragiisa u soo celin kara وهاجان إن شاء الله بوخشة إذا ما أنتوا كليا كم ياجان كرتوا دونتو إن شاء الله مركز توا نصاب وخندونا ويلكاير أنا بوح أن يدل لمذا أو أرجينا فكا ودريم يلي ما تدو قباء ميعاد مركا وأنا النوع وقفي عن ما أنت وجود هذا يرله هدي وحبرشتها هي هدي وحكرتها هيبا والنوع وجود هذا يرله مركا إن شاء الله ما موحن كلنا هذا اللي يدخل وشاك هدي وإلا بيني قلبي جيبه وفيو مركا النور كي أركت ذا يوم بكم قلبي ما قلبي لها الحمد لله رب العالمين ما دام قلبي يدي سوت شوكان مركا حكلنا هي أنا قلنا وحن قبلتها لنا هدي أن هي قبلها أرجعنا فكا إن أدمرت هي أدقنا ogsoonaato inuu ilaahay isaga qofur raximaha aragiisana u soo celin karo oo sidaana maaragtay imtixaan adiga iyo imtixaan kaleba oo maaragtay kaga qaadi karo rajana muuji insha Allah iskuulaadka maaragtay hadda imaka anaga maaragtay kula joogna uu naga fursad badan yahay alxamdulillah rabbil alamin anagu waaweyn ayaan iskuulaadka fursad u helay laakiin insha Allah isagoo yar
oo la qabsanaya ayuu fursad u helay marka iskuuleedna dalalka way ka jiri doonaan waanay ka jiraan insha allah waa qof wax bartay uu noqon doonaa leenahay insha allah run ahaantii aniga waa maalintii igu farxadda badneed aan odhan karaa waana maalintii igu naxdinta badneed waan odhan karaa maanta horta waxaan arkay ilmo yar oo aad u yar oo maxay ahayd araggii naafaka ah Soomaalida waxay ku mahmahdaa waalida ninkii soo maraa laga wareystaa caqabadii aan ka soo gudubno dhan baa sugaya maxay ahayd macaad waxaan rajeynayaa in aan mar walba la soo xiriiri doono kana warhayn doono waana maalintii ugu farxadda badnaydo waxaan soo bartay wiil yar oo ila mid ah oo ku jira daadii magarasa uu ciyaari lahaa oo haddana araggii naafaka marka waxaan rajeynaynaa in anagoo ah hablaha aragga naafada ka ah oo isku xidhan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan macaad ka warhayn doono xaaladiisa waqti kasta hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay wax walba marka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan booqashadeeda intaan ku ekaan doonin anagoo ku hadlayna hablaha aragga naafada ka